akaademiyada qaamuus e-learning fogaan wax ka dhigasho kuu fududaynaysa inaad wax walbo aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga. bismillaahi raxmaani raxiim. horta awalan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad magacaygu waa ustaad cabdullaahi cismaan xiirey, waa macalin dhigo maadada taariikhda ah iskoolka imaam maalik. waxaan rajeynaa insha allahu inaan ka shaqeyn doono imtixaankii taariikhda ahaa ee la galay sanad dugsiyeedkii 2020-2021 maadada taariikhda imtixaankeeda markaan fiirino insha allahu si hordhac ahaan haddaan u sheegno kale waa maado warkeedu wuu badan yahay laakiin way fududahay. imtixaankuna imtixaan ahaan buu u dhib badan yahay ma ogiya, laakiin si haddii loo fiiriyo caadi markii loo fiiriyo ma dhib badno, wuu sahlan yahay ilaa xad. maadada taariikhda ah markii laga shaqeynayo ama markuu ardaygu isku diyaarinayo imtixaankaasi waxaa looga baahan yahay isaga inuu sameeyo waxa la yiraahdo xawaadista ama waxyaalaha dhacayo qaabkay u dhacayaan oo kale inuu la socdo insha allahu. marka way fududahay, imtixaanku ma aad buu u fudud yahay. adinkan waxaan rajeynayaa ardada inay ka faa'iideystaan si imtixaanaadka dambe kolleytaba uu tusaale ugu noqdo. imtixaanku kan soo socda waayo lama dhihi karo, laakiin ma kaag dheeraanayo foom ahaan iyo qaab ahaan isaga unbuu u dhowaan doonaa. maadada marka taariikhda haddaan gudagalno qaybaha uu ka kooban yahay, laba qaybood uu ka kooban yahay. su-aalo laga jawaabayo oo su-aalo laga jawaabayo gadaal jiraan 10 su-aal waaye. 20 su-aal waxaa jirta marka oo la dooranayo. 20kaas su-aal oo la dooranayo marka hore waan sharxaynaa su-aasha la dooranayo, marka qaabka loo dooranayo jawaabta loo dooranayo waan sheegi doonaa insha allah. su-aasha ugu horeyso haddaan gudagalno dabcan waxay ku qoran tahay laba qaybood ama luuqad ay ku qoran tahay. qaybna waa carabi, qaybna waa english, qaybna waa soomaali. qaybta soomaaliga un baan sharxaynaa, inta kalena kolleytaba manhajka unbaa arday walba wuxuu ku qaato ka fahmi doonaa insha allah. su-aasha ugu horeyso tusaale ahaan fiditaankii dowladda cuthmaaniyiinta waxa ay gaarsiisay goboladeeda ama gobolada ay leedahay waxay gaadheen tira ahaan markii laga hadlaayo, leanna dowladdu marna waxay ku jirtay way yarayd, marna waxay sameysay tawasuc ay sameysay way ballaaratay. markay ballaaratay dowladdu goboladeedu meeqay gaadheen tira ahaan waxaan dooranaynaa insha allahu. jawaabta waxay noqon doontaa la dooranayo oo su-aasha koowaad taariikhda waxaa la dooranayaa ta ayaa la dooranaya, waa arkaynaa. marka waxaan dooranaynaa jawaabta 32 gobol oo ah ta ayaan dooranaynaa. marka arday walba waxaan rajeynayaa marka inuu fahmi doono dowladda cuthmaaniyiinta markay ballaaratay goboladeedu waxay gaarsiisay tira ahaan inay noqdeen 32 gobol. qaybta ku xigto su-aasha labaad haddaan gudagalno waxay dooranaysa su-aasha labaad haddaan bilowno. su-aasha labaad waxay ka hadleysaa caqabadihii ugu waaweynaa ay la kulmeen ciidamada cuthmaaniyiinta markii ay furanayo Constantinople. Constantinople waa taqaanaa, hadda magaaladan magacan lama dhaho, waa Istanbul, waa caasimada, waxaan dhihi karnaa hadda caasimada labaad waaye, leanna Turkiga caasimadiisa koobaad hadda waxaa la yidhaha Ankara, caasimada labaad ba waxaa la yidhaahdaa maaragtay Constantinople marka hore la dhihi jiray ama Qustandiniya, laakiin hadda waxaa la dhahaa Istanbul. weliba waxay ku taalaa dhanka Yurub. Turkiga saad ogtihiin laba qaybood waaye, qaybna wuxuu jiraa Aasiya, qaybna wuxuu jiraa Yurub. qaybta marka Yurub ay ku taalaa magaaladani waana ninka furtayna waxaa la yidhahdaa maxamed ulfaatix ama maxamedka labaad, waana xilligii dowladda cuthmaaniyiinta. markii ay furanayeen waxyaalihii ay la kulmeen maxaa kamid ahaa, caqabaadkii ay la kulmeen maxaa kamid ahaa, waxyaalihii la kulmeen waxaa kamid ahaa Turkiga waxaa ku taala laba qaybood ama waxaa ku yaalo dowladdii maaragtay Rome ama
meesha kadibna talyaaniga meeshaas xilligaas haysatay. marinada ay xooga ku haysteen waxaa kamid ah ama awoodahooda badan u yaaleen Dardaniil iyo Bosfor. marka maraakiibtii labada qaybood mid kamida taalay ayaa loo geli waayay. marka maraakiibta ay wateen Maxamed al-Faatix ama Maxamedka labaad waxaa ku adkaatay inay inta wareejiyaan maraakiibtaas ay u wareejiyaan dhanka kale. marka su-aashan waxaa la dooranayaa caqabaadkii markii la furanayay magaaladani ay la kulmeen waxaa kamid ahaa wareejinta maraakiibta, qaabkii ay u wareejin lahaayeen oo meesha caqabadu ka jirta si ay u fududaato. marka waxaa la dooranayaa wax la yiraahdo ba ayaa la dooranayaa wareejinta maraakiibta waay, halkaasaa la dooranayaa. su-aasha ku xigto oo saddexaad waxay ka hadli doontaa insha allah haddii ilaah yiraahdo dowladda Cuthmaaniyiinta markii laga hadlaayo qaabkeeda ama waxaan dhahnaa dowladda Cuthmaaniyiinta markii ay tabar daraysay oo aada u tabar daraysay waxyaalihii tabar dareeyay oo waxaa loogu yeeri jiray ama reer Yurub ay ugu yeereen magac la yiraahdo, macnaa dowladdu marna awood bay leedahay marna way awood dhigtaa. weliba waxaa la dhahaa dowladaha adduunka markii laga hadlaayo inay yihiin dowlad waa sida bini-aadanka oo kale. bini-aadanku wuxuu soo maraa marxalad oo uu yaryahay uuna awood lahayn, marna wuxuu maraa marxalad uu awood yeesho oo marxalatu shabaab la dhaho, marna wuxuu galaa marxalatul kuhuul, haddana wuu sii kobcaa, marka dambe shaykhuuqu ku noqdaa ama wuxuu ku noqdaa tabar daro. dowladda markay tabar yaraysay oo dowladani markii hore awoodaheedii hore ay dhumisay reer Yurub maxay ugu wici jireen waxyaalay dhihi jireen waxaa kamid ah marka erayga ugu horeeyo ninkii reer Yurub ee jirana ayaa la dhihi jiray. waxaa la dooranayaa marka ba ayaa la dooranayaa, waana jawaabtaasaa la dooranayaa. waxaan ku xujinaynaa marka hadda waxaan gelaynaa wax la yiraahdo qaybta ku xigto ah su-aasha afraad. waxay ka hadlaysaa waxa la yiraahdo ururka sahyuuniyadda reer Israa'iil ama Israa'iil, dowladdan ka jirta Falastiin oo dhulkaas Falastiin kolleytaba qaabkay u qabsatayba ha qabsato. sahyuuniyaddaas markay soo bilaabanaysay oo ay meesha imaanaysay waxyaalihii keen waxaa kamid ahaa heshiiskii Balfour iyo waxbaa kolleytaba jiro. laakiin waxaan sameynayna insha allah haddii ilaah yiraahdo ninkii barnaamijkan u ololeynayay oo sahyuuniyaddan ururkan aada ugu waxeynayay wuxuu ahaa nin oo asalkiisa yuhuud ahaa laakiin oo weriye ahaa. ninkaas magaciisa marka asagana waxaa la dooranayaa qeybta ku xigta oo ah waxaan dooranaynaa ba ayaa la dooranayaa. su-aasha afraan saasay noqonaysaa kolleyta kaas war kale ma sii gelinayno insha allahu. waxaan kaloon gelaynaa su-aasha shanaad iyo lixaad. su-aasha shanaad oo kale waxay ka hadlaysaa wax la yiraahdo isheeg dadka oo maaragtay markii laga hadlayo bini-aadanka dadka ku nool gobolka Kashmir oo maaragtay Hindiya Pakistan ah waxaa muslimiintu intay ka yihiin oo kale ayaan rabnaa inaan ogaano. dadka Kashmir ku nool, Kashmir waa dhulka hadda buugga fanfoorkan uu qadiyooyinku soo qaatay saddex ay ahaayeen: qadiyadda Rohingyaha iyo qadiyadda maxaan dhahaa Kashmir iyo qadiyadda Falastiin. qadiyadda markii laga hadlaayo dadka Kashmir boqolkii imse ayaa muslimka ah? boqolkii waxaa muslimka ah markii laga hadlaayo waxaa muslimka ah 80 ayaa la dooranayaa oo ah ta ay noqonaysaa. waxaad dareemaysaa marka meeshaasi gobolka Kashmir dadka degan boqolkiiba 80 inay yihiin dad muslim ah. ayadana jawaabteeda saasay noqonaysaa insha allahu. waxaan kaloon gelaynaa wax la yiraahdo
su-aasha lixaad markaan ka hadlayno dembiyada dagaalka amase waxyaalaha la sameynayo, waxaa leeyahay hay-adaha kale hay-adaha keliya ee waxaa leeyahay rasmiga ah u xil saaran maxkamadeynta inay maxkamadeeyaan dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Markii laga hadlayo taasoo kale waa wax qaramada midoobe ku saabsan. Cashirkaasi marka wuxuu ka hadlayaa qaramada midoobe. Markii laga hadlayo waxay leedahay departmentiyo ama waxay leedahay qaybahaas ay leedahay. Marka waxaa kamid ah wixii dembi ah ama la galo ama xuquuqda aadanaha la galo ay u yaqaanaan. Markii ay rabaan in lala xisaabtamo, hay-adda la xisaabtanta waaye waxaa dooranayaa maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa la dooranayaa oo ah ba ayaa la dooranayaa. Marka waxaan dooranaynaa iyadana ba ayaan dooranaynaa insha allahu. Waxaan gelaynaa su-aasha lixaad. waan dooranay oo maxkamadda ahayd. Hadda waxaan gelaynaa su-aasha toddobaad. ayadana waxay ka hadlaysaa insha allahu golaha guud markii laga hadlayo qaramada midoobe waxa uu go-aamiyaa uu markuu sameynayo waxa la yiraahdo hoosgeyn ayaa la sameeyey. wadamadii shisheeye oo gumeysiga markay isticmaalayeen ayaa waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo hoosgeyn. dagaalkii koobaad adduunka markuu dhamaaday, dagaalkii labaad iyo dagaalkii koobaadna waxaa udhexeysay aad ogtihiin 20 sano taqriiban wax la dhaho udhexeysay. marka dagaalkaasi markii uu dhamaaday dowladana way adkaadeen, dowladii waaweynaa, dowladana waa laga adkaaday. dowladihii laga adkaaday dhulalka ay gumeysanayeen maxaa lagu sameeyaa ayay koleytaba ka fadhiisteen, waxayna soo saareen hoosgeyn wax la yidhaha ayay sameeyeen. marka markii la hoosgeeyey Soomaaliya gobolada koonfureed siiba, laana gobolada waqooyi waxaa gumeysan jiray Ingiriiska, asagu wuxuuna galay dowladihii raay ayuu ku jiray ama adkaaday. marka gobolada koonfureed ayaa waxaa haystay Talyaaniguna wuxuu galay dowladihii laga adkaaday. sidaa daraadeed waxaan leenahay marka Soomaaliya gobolada koonfureed weliba loo dan leeyahay markii hoosgeynta lagu sameeyey muddada meeqay qaadatay? waxay qaadatay 1950kii ilaa 1960kii. marka waxay noqonaysaa jawaabta la dooranayo insha allahu 10 sano ayaa la dooranaa. waxaa la dooranayaa 10 sano ayaa la dooranaa oo ah ja ayaa la dooranaya insha allahu. asna waa qodob kale waaye. qodobka kale ku xigo su-aasha ku xigto su-aasha 8aad iyo su-aasha 9aad haddaan israacino waxay leedahay marka su-aasha 8aad oo kale taliyihii ugu horeeyey ee ciidanka Soomaaliya militariga markii la sameynayo yuu ahaa. Soomaaliya saad ogtihiin militariga ama ciidankeeda waxaa la sameeyey 12 Abriil 1960kii. marka 12 Abriil markii la sameeyey oo maalinkii ciidamada ku asaysan generaalkii ugu horeeyay oo xoogga dalka loo magacaabay inuu maaragtay hogaamiyo waxa uu ahaa wuxuu ahaa Generaal Daawud Cabdulla Xirsi oo ah ta ayaa la dooranayaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. su-aasha 9aad waxaan dooranaynaa 1976 waxaa la kala diray oo meesha laga saaray golihii sare. golaha sare saad ogtiin waa xilligii ciidanka Soomaaliya ayaa waxaa loo qaybiyaa dhowr si dowladnimadeeda markii laga hadlayo oo ah waxa la yiraahdo xilli ay soo martay daaqiligi iyo xilli ay soo martay dowladihii rayidka ahaa iyo xilligii militariga. militariga markuu burburay 91diina ama 91dii
waxay gashay Soomaaliya wax la yiraahdo dagaal sokeeye iyo waxyaalahaas ay gashay hadda wixii ka dambeeyayna dawladda ku meel gaar ah waxay yeelatay laakiin markii dambena 2012 ay waxay ka baxday ku meel gaarkii marka xilligan golihii sare oo xilligii ciidanka waaye janaaradii ciidanka hogaaminayay oo 25 ahaa golihii sare markii dambe ayay dhexdooda baa la isku shaandheeyay 1976 markii la marayay ayaa waxaa laga soo reebay tiradooda inay noqoto wax la yiraahdo waxaa laga soo reebay tiradooda inay noqdaan 5 xubnood oo qura ayay noqdeen waxay noqdeen 5 xubnood oo qura ayaa laga soo reebay intii kalena kolita waa isku shaandheeyay inkastoo khilaafaad iyo sheegaan marka taasina halkaas aan uga baxaynaa su-aasha ku xigta oo tobnaad waxaan dooranaynaa insha Allah dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay ama se mahdiga xaguu ka jiray wadanku ka jiray wadanku ahaa waxaan leenahay wuxuu ka jiray wadanka Suudaan ayuu ka jiray mahdigana waa dhaqdhaqaaqii la dirirayo gumeysiga ayuu kamid ahaa waxaan kaloo gelaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo su-aasha 11aad jamhuuriyadda ama su-aasha 11aad waxay ka hadli doontaa wax la yiraahdo jamhuuriyadda midowga Koonfur Afrika markii laga hadlayo waxyaalihii ka jiray ama se dhibaatadii ka jirtay ugu weyneyd maxay ahayd Koonfur Afrika waxaa la yiraahdaa waa meeshii midabtakoorka ugu xumaa uu ka jiray marka ereyga la dooranayo oo wixii ka jiray meesha uu ka hadlayo jamhuuriyadda midowga Koonfur Afrika waxa ay ahayd baa la yiri mid kamid ah tusaalayaasha ugu xun ama ugu foosha xun maxay ahayd marka waxaan leenahay marka waxa la dooranayaa ma ahan dagaal ma ahayn waxa la yiraahdo midab kala soo kan waay marka ta ayaa la dooranayaa insha Allah hadii la yiraahdo taasina halkaas aan uga baxaynaa hadii aan galno qaybta ku xigto oo ah su-aasha 12aad iyo su-aasha maxaan dhahaa 13aad isku darno su-aasha 12aad oo kale waxay ka hadlaysaa bishii September 1939 markii la marayay ciidamada Jarmalka ayaa waxay ka gudbeen baa leeyahay markii dagaalku uu labaad qarxay waaye meesha ay ka gudbeen soodinta ay ku gudbeen laba laano dagaalku markuu qarxay wadanka ay ka gudbeen xuduudiisa waxa ahaa wadanka la yiraahdo Poland ba ayaa la dooranayaa waxa la dooranayaa ba ayaa la dooranayaa oo ah midaas ayaa la dooranayaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo su-aasha 13aad waxaa ka dhintay baa leeyahay dagaal ama ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka markii laga hadlayo dadka gaaraya oo dagaalkii labaad khasaaradii uu soo geystay buugana sidaas ay ugu qoran tahay waxyaalaha dadkaas khasaaradii qiyaas ahaan ku dhawaad wayna ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa laakiin qiyaasaadka ay qoreen waxa kamid ah ta ayaa la dooranayaa 62 milyan inuu dagaalkaas uu ku dhintay khasaare ahaan markii dagaalkii koowaad dagaalkii labaad laga hadlayo waxa khasaare badnaa dagaalkii labaad dawladaha maarta xataa waxa la isku isticmaalay dagaalkaas aad ogtihiin waxa la yiraahdo hubka nuclearka oo loo isticmaalay Japan markii khasaare ahaan markii la dhaho asaga dhibaato badnaa su-aasha ku xigto ah su-aasha 14aad dagaalkii qabooba markii laga hadlayo waxa ay aragtay baa la yiraahdo qaaradda Yurub ama dawladaha Yurub ku nool ama dawladaha Yurub ka jiray waxay is arkeen inay u dhaxeeyaan laba isbahaysi ba ayaa la dooranayaa iyadana sidoo kale oo ah isbahaysigii NATO iyo isbahaysigii Warsaw ayuu ahaa marka reer Yurub waxay arkeen inay labadaas isbahaysi u dhaxeeyaan macna marka la leeyahay isbahaysiga NATO waxa uu hogaaminaya Mareykanka isbahaysiga Warsaw waxa uu hogaaminayay Ruushka reer Yurub marka dagaalka qabo xilliga uu socday taas un bay isku arkeen kolay taba ayagu inkastoo ay la kala safnaayeen laakiin macluumaad ahaan saas ay ahayd arrintu waayahay waxaan gelaynaa qaybta kale su-aasha
15 waxyaalaha ka hadlayso waxaa kadib soo jeedinta golaha ammaanka ama qaramada midoobe. su-aasha daaya markalena way nagu soo noqotay isla cashirkaasi. hadda waxaan gelaynaa golaha ammaanka. waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo qaab dhismeedkooda waxaa kamid a inay leeyihiin golos maaragtay guud iyo xooghayn iyo waxay kale leeyihiin maxkamadda cadaaladda waxaasay leeyihiin. marka xooghaynta guud markii la dooranayo oo waxaa loo gudbiyaa golaha guud, laakiin waxaa soo jeediya golaha ammaanka. marka mudaxileedka ninka xooghayaha guud loo dooranayo mudaxileedkiisu meeqa waayo? mudaxileedkiisu waxaan dooranaynaa insha allah oo 5 sano ah. wuxuuna awood u leeyahay in loo mar labaad uu doorasho uu soo galo. awood ayuu u leeyahay oo sharci ka reebaya ma jiro. qaybtaasina iyadana halkaas ayaan uga baxaynaa. waaya su-aasha 16aad waxaa la yidhi dowladaha xubnaha ka ah ururka midooda Africa markii laga hadlayo tiradiisa ama meeqa waayo? ururka midooda Africa saad ogtihiin waxaa la aasaasay 1963 waxaana lagu aasaasay magaalada Addis Ababa. markii la aasaasay way yaraan dowladuhu, laakiin markii dambe way bateen. waxay gaareen markii ugu dambeysay tira ahaan meeqay gaareen? waxay gaarayaan tiradoodu 54 ayay gaarayaan xaaliyan. intaas waayo tiradoodu. marka ayadana su-aashaas jawaabteeda la dooranayo saasay noqon doontaa. tan kale fikradda lagu aasaasay waxaa jirta ururo caalami ah iyo ururo goboleed. urur goboleed waxaa jira laakiin urur caalami u dhigmo sida ururka iskaashiga islaamka ama ururka shirweynaha islaamkana waa la dhahaa. laakiin magacaan markii dambe loo bixiyay waxaa la yidhaha ururka iskaashiga islaamka. ardaduna kaleeto way ku wada baraarugsan yihiin insha allah. marka ururkaasi fikradda lagu aasaasay yaa iska lahaa, yaa keenay? kaleeto wax kastoo la aasaasay waxay leeyihiin fikrad ruux soo jeediyo iyo dhaqangelinteeda. fikradda lagu aasaasay ururkan waxaa la aasaasay markii la aasaasayay taariikh ahaan haddaan dib inuu celiyo 1969. laakiin 1900 fikradda aasaasitaankiisa waxaa keenay aadan cabdulle cusmaan oo ahaa aadan cadde, madaxweynihii ugu horeeyay jamhuuriyadda Soomaaliya. markuu keenayana boqorka Sacuudiga boqor Faysal ayaa wuxuu imaanayay meesha la yiraahdo Muqdisho. markuu imaaday uu booqasho ku yimid caasimadda Soomaaliya Muqdisho, aadan cadde wuxuu soo jeediyay qadiyadda Falastiin sidii aan uga hortagi lahayn inaan sameyno wax la yiraahdo urur islaamka dhan isku keeno oo maaragtay dowladaha caalamka islaamiga oo dhan iskugu imaadaan. marka fikraddan waxaa keenay oo la dooranayaa aadan cabdulle cusmaan oo ah ba ama aadan cadde sida saad u taqaaniinba. su-aasha ku xigto oo kale waaya su-aasha 18aad waxaan dooranaynaa insha allahu dastuurka Soomaaliya waxaa la yidhi sanadka 1960 leano wax kasta waxay leeyihiin nidaam iyo system loo sameeyo dastuur ahaan iyo waxyaalihii oo ay Soomaaliya markii ugu horeysay dastuurkii loo sameeyay goormuu ahaa 61. marka dastuurkaas waxaan dhihi karnaa waa dastuurkii koowaad ayuu ahaa. dastuurka la sameeyay Soomaaliya loo sameeyay 61 wuxuu ahaa dastuurkii koowaad. marka ayadan waxaa la dooranayaa ba. su-aasha ku xigta oo 19aad tiirarka dimuqraadiyadda markii laga hadlayo laano cutubka ugu dambeeyo cashirkiisa labaad ayaa waxaa ku jirta wax la yiraahdo الشورى والديمقراطية ama shuurada iyo dimuqraadiyada waxa la dhaho. marka qaybta dimuqraadiyada ayaa waxaa ku jirta marka tiirarkeeda waxyaalaha ay ku taagan tahay maxaa kamid ah. tiirarkaas waxaa kamid ah kaliya talisnimo miyaa, adeegsiga awood miyaa. waxaa la dooranayaa
doorasho oo ja ayaa la dooranayaa, xarafka ja ayaan dooranaynaa insha allah. su-aasha kale ku xigto oo u dambeyso qeybta doorashada waatana 1900 Soomaaliya saad ogtiin xilligii dowladihii rayidka ayuu su-aashan ay ku lug leedahay. xilligii dowladihii rayidka ahaa doorasho waxaa dhacday 2 doorasho oo baarlamaan iyo 2 doorasho madaxweyne. 1961 doorasho madaxweynaha dhacay, 1967 waxaa dhacay doorasho madaxweyne, 1961 waxaa la doortay Aadan Cadde, mandatekiisuna wuxuu ahaa 6 sano. 1967 waxaa la doortay Cabdirashiid Cali Sharma Arke. laakiin tan waxay ku saabsan tahay doorashadii baarlamaanka waay, midii ugu horeysay oo la sameeyey oo xilligii dowladihii rayidka dhacdo 2 doorasho baarlamaanka. midda koowaad waxaa la sameeyey 1964. 1969 doorashadii 2 baarlamaanka markii la sameynayay, xubnaha baarlamaanka ee la doortay xilligaasi tiradoodu meeqay ahayd? waxaan dooranaynaa, way ku jirtaa, waxaa la dooranayaa ta oo ah 123 xubnood ayay ahaayeen, inkastoo tiradoodu isbedelin. 64 saanay ahayd. marka qaybahaasi waxaan rajeynaynaa insha allahu qaybihii doorashada ahayd. hadda waxaan gelaynaa qaybihii ka jawaabidda ama su-aalaha tooska ah oo directiga ahaa ayaan gelaynaa. imtixaanka qaybta su-aalaha tooska markii laga hadlayo waxay ka kooban yihiin 10 su-aalood. su-aasha ugu horeyso ama su-aasha koobaad aan dhihi karno maxay tahay? sababihii keenay dowladda Cuthmaaniyiinta inay dhacdo oo gudaha sabab wax kasta markay dhacayaan sabab ay leeyihiin. sababaha dhacay ama dowladda Cuthmaaniyiinta in ay dhacdo maxaa keenay? dowladda Cuthmaaniyiinta inay dhacdo, sheeg 2 ka mid ah sababihii keenay ama ka qayb qaatay burburka dowladda Cuthmaaniyiinta ama tabardaradeedii. waxyaalihii keenoo kale maxaa kamid ah? laakiin sababihii gudaha waay. sababaha gudaha marka way badan yihiin, dhowr xabay ahaayeen, laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa qaybahan. midka koobaad muxuu ahaa ama sababihii gudaha? heshiiskii lala galay dowladda Cuthmaaniyiinta. waxyaalaha keena waxaa kamid ahaa heshiis la-aan ka dhex jirtay baa leeyahay dadka ku hoos nool dowladda. macnaa qowmiyaadkii ama dadkii ayaga ku hoos noolaa oo ayaga hoos imaanaya ayaa waxaa ka dhexeeya khilaafkaasaa marka wuxuu keenay waxa la yidhaahdo maaragtay dowladda tabardari. marka waxaan kusoo koobaynaa waxa la yidhaahdo heshiis la-aan ka dhex jirtay dadka ku hoos nool dowladda oo dowladda Cuthmaaniyiinta aan ka wadno. qodobka labaad 2 nuqdo ka sheegaan aan lahay oo jawaabta aan bixinayn waxay noqonaysaa ka fogaanshaha ay dowladda Cuthmaaniyiinta ay ka fogaatay shareecada islaamka. macnaa dowladda markeeda hore waxay ahayd dowlad islaam ah oo sunni ah oo la dirirto shiicada iyo khuraafaadka iyo waxyaalahaas oo kale. haddana waxay ahayd dowlad shareecada islaamka tadbiiqisa. laakiin markii dambe waxaa kusoo baxay wax la yidhaahdo in dowlad Cuthmaaniya ay meesha ka baxday. dadkii diinta maaragtay muctamidka koobaad ama ku tiirsanaa dad marka waxay noqdeen shareecadii ka fogaaday. waxyaalaha tabardarrada u keentay ahayd. midda kale ku xigtoon qaadanayna waxaa kamid ah su-aasha labaad ama su-aasha labaad waxay ka hadlaysaa waxa la yidhaahdo sheeg 2 ka mid ah muhiimadda gobolka Kashmir uu leeyahay Pakistan. leanna gobolkan waxaa isku haysta saad ogtihiin. haddaan meeshan wax yar ku celiyo, gobolka Kashmir oon hadda ay dhahayna 80% ayaa waxay tahay muslim. wadamadaas kala haysto waxaa kamid ah Hindiya oo ka haysato 65%, Pakistan oo 30% ka haysato, iyo Shiinaha oo 5 ka haysto. isku darkoodana 100 ay noqonaysaa. marka Pakistan faa'iidada ugu jirto gobolkan oo maaragtay ay ka leedahay muxuu yahay ama muhiimadda uu leeyahay maxay tahay? waxaan kusoo koobay way badan yihiin laakiin dhowr qodob waaye. midka koobaad waxaa leeyahay gobolka Kashmir Pakistan muhiimadda koobaad u leeyahay waxaa waaye waxaa kasoo burqada 3 webi oo halbowlo u ah nolosha dadka Pakistan. nolosha
dadka Pakistan. Haddii marka gobolkaas ay dhumiyaan oo Pakistan ay dhumiso, webiyadaas ayaa maarata halis galaya. Marka waxaan kusoo koobaynaa 3 webi oo halbowlow ah nolosha dadka Pakistan ayaa ka imaado gobolka Kashmir. Qodobka labaad waxa ay xoog dadeed oo muslimiin ah u tahay baa layidhi gobolka Punjab. Gobol ka tirsan Pakistan ayaa wuxuu ka helaa difaac xagga ciidan oo islaam ahaan dad muslimiin oo maadaama ay degan yihiin Kashmir u badan yihiin, waa meesha ay ka helaan xayndaab uu uga yahay gobolkan uu yahay. Haddii gobolkan marka uu Kashmir meesha ka baxo, Punjabna asna gacantu ka baxa. Marka waxaan kusoo gabaynaa wuxuu xayndaab u yahay ama uu maaragtay uu u yahay xoog dadeed oo muslim ah oo muxuu yahay marka gobolka Punjab uu yahay. Marka gobolkan muhiimadda labaad uu leeyahay waaye. Su-aasha saddexaad oon qaadanayna insha Allah waxay ka hadlaysaa madaxweyne Aadan Cadde ayaa wuxuu ku faanay in uu yahay markuu wareejinayo xukunka oon hadda sheegaynay markii ugu dambeysay su-aasha aan bixinaynahay in 67dii la doortay Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayuu wuxuu bixiyay su-aasha tan oo xoogaa uu maaragtay meeshii xafladii uu kasoo jeeday. Wuxuu yidhi marka madaxweyne Aadan Cadde ayaa wuxuu ku faanay baa leeyahay in uu wareejinayo dowlad aan qof fikir dartiis ugu xirnayn. Marka waxaa leeyahay maxaan ka fahmaynaa oraahdaasi? waxyaalo badan ay ixtimaali kartaa, laakiin qodobka ugu muhiimsan ee ixtimaalka waxaa ka mid ah in uu wareejinayo dowlad hufan oo ruux walba markuu galayo uu galayo inuu dadka wax u qabtay ee uusan ahayn asaga inuu wax qabsado iyo dana qaas uusan ka lahayn. ayuu ka leeyahay hadafka ugu weyn u lahaa eragan oraahdan ay noqon kartaa. su-aasha afraad haddaan galno waxaan ka hadli doonaa su-aasha afraad waxay noqon doontaa sheeg laba ka mid ah baa la yidhi guulihii ay gaareen xukuumaddii militariga ahayd ee Soomaaliya 7 sano ee ugu horeysay. waxyaalahay gaareen waxaa ka mid ah kow, waxay qoreen afka Soomaaliya ayakaa qoreen oo 7 sano waxyaalahay guulahay gaareen ka mid ah. qodobka labaad ay gaareen oo qabteen waxaa ka mid ah waxay sameeyeen wax la yiraahdo dadkii ku saamoobay abaartii daba dheer ayay waxay u sameeyeen dib u dejin. goormay dhacday 1974 abaartaas dhacdayna waxay u sameeyeen dib u dejin ay u sameeyeen. su-aasha shanaad haddaan galno xukunka waa kii eebe ee ma aha kiina dhalanteedka ah. oraahdan horta waxaa yidhi Cumar Mukhtaar oo ahaa halgamayaashii Afrika ninkii ragga ugu caansanaa oo ka diriraya wadanka la yiraahdo Liibiya. waana nin markii dambe Talyaanigu ay qabteen ay saas ku dileen. ninkaas baa yidhi markay qabteen oo ay soo qabteen waxay dhaheen waxaa lagugu xukumay dil. oraahdan uu yidhi wuxuu yidhi ma ahan xukunku kiina dhalanteedka ah waa kii eebe. oraahdan marka wuxuu ka wadaa wixii ilaahay ii qadaray ayaan la kulmaya ee ma ahan waxaad sheegaysiin. marka kalsoonida uu Rabbi ku qabay ayaa meesha ka dareemaysaa oo ah inuusan ayaka cabsi ka qabin. marka waxaan kusoo koobaynaa oraada ugu muhiimsan xukunka eebe waa kii alle oo wixii ilaahay ii qadaray ayaan la kulmayaa ee ma ahan saad sheegaysiin. taasna waa qodob kale waaye. su-aasha lixaad sheeg laba ka mid ah sababihii dhaliyay baa layidhi dagaalkii labaad ee adduunka. dagaalkii labaad ee adduunka sababaha dhaliyay maxay ahaayeen? way badan yihiin kuwan markii laga hadlayo. marka aan kasoo qaadano labado xabo. midda koobaad wuxuu ahaa heshiiskii Versailles. heshiiskani qodobka koobaad waaye. heshiiska Versailles muxuu ahaa? dagaalkii koobaad adduunka ayaan u noqonaynaa. markii uu dhamaaday dowladihii laga raayay waxaa kamid ahaa Jarmalka. Jarmalkuna wuxuu ahaa dowladda ugu awooda badan dowladaha kasoo horjeeda dowladaha isbahaysiga. Jarmalka markii dowladihii adkaada uu galay heshiiskan ayaa lala galay. ugu badnaa shuruudihiisa waxaa kamid ahaa inuusan dib dambe usoo noqon doonin ciidan samaysan karin, inuu maaragtay hubkiisa wareejiyo, inuusan hub samaysan karin.
heshiiskaas ayaa waxaa la yidhaha heshiiska Versailles. marka qodobka koobaad waxaa waaye heshiiskii Versailles. qodobka labaad waxaan qaadanaynaa oo sababaha keenay dagaalka inuu qarxo waxaa keenay dhaqaale xumadii waqtigii ka horeysay dagaalkii labaad adduunku wuxuu galay dhaqaale xumo. insaankuna markuu dhibaato arko ayuu wuxuu sameeyaa faraj uu raadsadaa. marka dagaalkan waxyaalaha keenay waxaa kamid ah dhaqaale xumadii adduunka soo wajahday. markuu dagaalka koowaad adduunka dhammaaday ayaa dhaqaale xumo adduunka soo wajahday. marka khasaaradii ama dhaqaale xumadii adduunka soo wajahday intuusan dagaalkan bilaabin ka hor ayaa sabab waxay u noqotay dagaalkii labaad adduunka inuu qarxo. su-aasha ku xigto waxaan leenahay waa su-aasha 7 waaye. sheeg laba ka mid ah howlaha uu leeyahay golaha guud ee qaramada midoobay. qaramada midoobay markii laga hadlaayo golaha guud howlihiisa maxaa kamid ah? waxaan leenahay waa soo koobaynaa. kow, siyaasad go-aaminta waxa la dhaho. siyaasada dhan oo adduunka ama qaramada midoobay nimanka dejiyo waaye nimankan golaha guud. golaha ammaanka ma ahan laakiin golaha guud aan ka hadlaynaa. siyaasada qaramada midoobay nimanka dejiyo waa. qodobka labaad ay leeyihin waxaa kamid ah matalaada golahan ayakaa matala. marka waxaan leenahay siyaasad go-aaminta ururka ayakaa iskale. qodobka labaadna waxaan leenahay matalaada golaha ayakaa matalo oo maaragtay waxay ka qayb galaan wax kasta oo ku saabsan ururku inuu maaragtay sameeyo. marka magacaas ayakaa ku matalo. su-aasha 8aad waxay ka hadlaysaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo sheeg laba ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay jaamacadda carabta oo kale. jaamacadda carabta markii la aasaasay ujeedooyin hadaf loo aasaasay. hadafkii loo aasaasay muxuu ahaa? kow waxaan leenahay waxaa kamid ahaa ka gudbidda caqabadaha ku aadan baa layidhi barnaamijyada siyaasadeed. wax kastoo carabta barnaamijyada siyaasadeed see looga gudbaa. haddaan ku celino ka gudbidda caqabadaha ku aadan barnaamijyada siyaasadeed oo maaragtay caalamul islaami ama caalamul carabi uu leeyahay. haddaan sheegno carabta marka ururkan wuxuu ka kooban yahay macluumaad ahaan hadda saa u fiicantid 22 dowladood. 22 dowladood 10 dowladood waxay ku yaalaan Africa, 12 waxay ku yaalaan Aasiya. marka si dowladaha qaarna Africa ku yaalaan qaarna Aasiya ku yaalaan si loogu sameeyo wax la yiraahdo caqabadaha siyaasadeed oo si looga gudbo ayaa ururkan loo sameeyay. ka gudbidda caqabadaha ku aadan barnaamijyada siyaasadeed. qodobka labaad oo aan qorayno ama aan ka sheegayno waxaa kamid ah isku duwidda aragtida siyaasadeed waxaa la yidhaha dowladaha xubnaha ka ah. maana aragti midaysa inay wax kasta ka qaataan oo ayna ayagu ku kala bixin si ay wax kasta ay iskula meel dhigaan. waxaan leenahay isku duwidda aragtida siyaasadeed ee dowladaha xubnaha ka ah ururkani inay hal meel kasoo wada jeestaan. su-aasha 9aad waxay ka hadlaysaa wax la yiraahdo sheeg laba ka mid ah caqabadaha dibadda ee soo wajahay ururka midowga Afrika. ururka midowga Afrika caqabada gudahana way soo wajaheen, caqabada dibadahana way soo wajaheen. hadda waxaa naloo diray caqabadaha gudaha ee soo wajahay maxay ahayn? kow waxaan leenahay ka hortagidda raadadkii gumaysiga iyo midab kala sooca. awood waxay u yeelan waayeen caqabadihii say uga hortagi lahayn. arrintaas ayaa ku adkaatay. qodobka koowaad waaye ka hortagidda raadadkii gumaysiga iyo midab kala sooca caqabadahay kamid ahayd. tan labaad waxaa kamid ah ka hortagidda ama ka hortaga raadadkii dagaalkii qabooba raadadkiisii say uga hortagi lahaayeen waxay ku noqotay caqabaday ahayd. su-aashaasna marka waxaan kusoo koobaynaa dowladahani ama ururkan midowga Afrika caqabadiisu way banaayeen. dhaqaale daraa kamid ahayd way badnaayeen laakiin hadda labada qoranaysa waxaa waaye ka hortagidda raadadkii gumaysiga iyo midab kala sooca oo koonfur Afrika oo kow ka ah. ka hortagidda raadadkii dagaalkii qabooba waxyaalihii uu ka tagay say uga hortagi lahaayeen idaa caqabaday ku noqotay. su-aasha ugu dambeyso oo imtixaankan waxaa kamid ah
sheeg mid kamid a ujeedooyinka sharciga. Sharciga ujeedooyinka uu leeyahay maxaa kamid way badan yihiin, laakiin midka ugu muhiimsan ama midka is leenahay waxaa kamid wax kastana ay asaga ay maaragtay hoos imaanayaan. waxaa kamid ah xaqiijinta cadaaladda dowladaha dhexdooda, ama xaqiijinta cadaaladda dadka dhexdooda. qodobka ugu muhiimsan oo sharci markii la dejinayo taas waay. marka insha Allah haddii ilaah yidhaahdo su-aashii 10 ayaan kusoo gabagabeyneynaa. imtixaankuna intaasuu ka kooban yahay, wuuna sahlanaanayaa. adiguna waxaa la rabaa inaad saas oo kale iyo hadda intaan ku siiyey iyo wixii aad ku darsan karta aad ka dhigatay insha allahu. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.